تأملات قرآنية. قرآن أحيا في قلبي نورا من بين الظلمات، أعطاني ثقة في ربي، أملا إيمانا وحياة، في كوني لا أيأس أبدا والحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، xalqadan walaalayaal waxaynu ku wada qaadan doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala u fiirsiga suuratul kawthar. suuraddan magaceeda waxaa la yidhaahdaa suuratul kawthar. alkawthar waa khayrka badan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo, saynu sharaxi doono. suuraddan waxay kusoo degtay maka marka lagu socdo qowlka yani miisaanka badan ee culammadu ay u badan yihiin raxmatullaahi calayhim. waana suuradda keliya ee qur-aanka ku jirta ee culammadu ay isku hayaan ma hurday kusoo degtay mise soo jeed. 113 suuradooda kale waa la isku waafaqsan yahay inay soo jeed kusoo degeen, laakiin suuraddan xadiidka Anas radiyallahu anhu ardaah ee saxiixa ku jira wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wassalaam isagoo hurda gurigii Salama radiyallahu anha ardaaha in nabigu baraarugay dabadna suuradda lagu soo dejiyay. marka suuraddan culimadu marka waxay isku khilaafeen ma hurday kusoo degtay mise soo jeed. waliba waxa xoog badan inay kusoo degtay waxa weeye soo jeed oo xaaladda yani nabigu dhamayska tirnaa calayhi salaatu wassalaam inay kusoo degtay. suuraddan maqsadka ay ka waramaysaa waa ilaahay subxaana wa tacaala oo nabigiisa ku galladaysanaya calayhi salaatu wasalaam yani khayr aad u badan oo una midna sheeganaya ilaahay subxaana wa tacaala. ilaahay wuu midna sheegtaa. bal illaahu yamunnu calaykum an hadaakum liliimaan. laakiin dadku inay isu midna sheegtaan wax bannaan maaha. inaan ku imaado ku idhahdo soonigii maalinkii wax ku siiyey, soonigii maalinkii soonigii waxaa ku siiyey, soonigii waxaa hada laa yajuus. hada shay qofku ku dambaabaya weeyaan, qofkana ka baabinaya maxay sadaqadii. laakiin ilaahay cid wax ka doonaya ma jirto subxaana wa tacaala. ilaahay nabigiisa wuu midna sheegay uga ladashay meelo badan, suur badan baa inoo socda. wadduxaa wallayli idaa sajaa alam yajidka yatiiman fa'aawa alam nashrah laka sadrak. marka ilaahay wuxuu ugu midna sheeganaya nabigiisa calayhi salaatu wasalaam khayr aad u badan inuu siiyey oo u difaacay ilaahay subxaana wa tacaala. bismi illaahi araxmaani araxiim. innaa annagu ilaahay uu isweyneynaya subxaana wa tacaala. ilaahay uu isweyneynaya, laakiin ilaahay waa keli. innaa annagu acطaynaaka waxa aanu ku siinay alkawthara, kawthar baanu ku siinay. marka kawtharka waxa lagu fasiray khayr aad iyo aad u badan, waxaana ka mid oo soo gudagelaya sida nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam webi iyo tog dhex maraya waxa weeye jannada oo ilaahay subxaana wa tacaala nabigeena uu siiyey sala allahu calayhi wasalam. innaa acطaynaaka waxaanu ku siinay alkawthara, webiga kawtharka la idhaahda ee jannada dhex mara ayaanu ku siinay. ilaahay u shukri naq oo fasalli lirabbika, rabbigaa oo keliya u tuko, wanxar rabbigaa oo keliyana wax u gowrac. inna shaani'aka ka waxa weeyaan yani ku nacaaya rasuulka ilaahayow huwa alabtaru, isaga ayaa cidhiblaawe ah oo bilaa khayra oo waxa weeye khayr kasta wax way ka go'an. marka suuraddani inna acطaynaaka alkawthar, madaxdu marka waxa weeyaan ay waramayaan waxay dhahan saasaanu goynay, saasaanu samaynay, oo madaxdii adduunka weeyaan. ilaahayna subxaana wa tacaala isagoo boqorkii boqorrada ah wuxuu isticmaalay tacdiimu nafsi, naftiisa inuu weyneeyo o ilaahay uu idhaahdo inna acطaynaaka waxaanu ku siinay annagu alkawthar. suuraddan waxaa ku sugan laba bushaaro oo nabiga loo bushaareynaya calayhi salaatu wasalaam. acطaynaaka alkawthar waxaanu ku siinay webiga kawtharka la idhahdo ee jannada dhex mara. inna shaaniyaka huwa alabtar, ka waxa weeye rasuulka ilaahay oo ku nacaana huwa alabtar, isaga ayaa khayrlaawe ah oo cidhiblaawe ah oo aan cid sheegaynin oo nasabkiisa uu go'an yahay. marka laba bushaara nabiga ku jira calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo suuraddan ku sugan shukri naq nabiga in la amray calayhi salaatu wasalaam. laba cibaado oo waaweyn oo cibaadaadka ilaahay ka mida lagu dhowaado ugu waaweyn ayaa nabiga la faray calayhi salaatu wasalaam. waa salaadii iyo gowracii. salaadu cibaadaadka badaniga jirka ka dhaca cibaadada ugu weyn weeyaan. gowracuna cibaadaadka qofku waxa weeyaan xoolaha uu ka bixiyo cibaadada ugu weyn weeyaan. oo gowracu waa cibaado, waana cibaada maaliya oo waa wax qofku ka bixinayo xoolihiisa iyo lacagtiisa qofku ku soo iibsanayo oo ilaahay dartiidna uu gowracayo. gowracu dadkeena in badan oo kamidi uma haystaanba inuu yahay cibaadaba. gowracu waa cibaado, waliba waa cibaado weyn oo kamid cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala lagu dhowaado. sida awgeed qofku inuu iska ilaaliyo ilaahay cid aan ahayn, qofku inuu wax u bireeyo oo wax u gowraco inuu iska ilaaliyo weeyaan. waayo waa khatar weeyaan. nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam lacana allah ilaahay an nacdalo
oo ka dheereeyo naxariistiisa man dhabaha ligayri illaah qofka ilaahay cidaan ahayn wax u bireeyo wax u gowraca lacnad ayaa nabigu waxa weeyaan uu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka in la iska ilaaliyo in cid aan ilaahay ahayn wax loo gowraco hadday tahay dad culamo ah hadday tahay awliyo hadday tahay dad saalixiin oo wanaagsan hadday tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid wax loo gowrici karo aan ilaahay ahayn ma jiro subxaanahu watacaala walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu allahi calayh marka in badan qofka marka la sixro iyo wixii la mid wax laga yaabo qofku hadhow inuu dad u tago oo dabadna dadkaas ay ku yiraahdaan wax gowraco wax bire oo jin wax u qalco kullu hada ashyaa muharram an banaaneen weeyaan oo shariicadeen wax weeyaan ku ah muharram fasalli li rabbika rabbiga oo kaliya u tuko wanhar rabbiga oo kaliyana wax u gowrac waxa kale oo aayadda lagu fasiray fasalli li rabbika salaadii ciidi oo ciidi carafo fasalli li rabbika rabbiga u tuko ciidi carafo wanhar dabadna gowrac ulhadi taana lagu fasiray oo waxyaalaha soo gudagalay ay kamid inna shaaniyaka huwa al-abtar nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam cidda nacda yada ayaa abtar ah oo wax weeyaan ciriblawe ah oo bila baraka ah oo bila khayr oo nasabkiisu go'an nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maanta nasabkiisa qof kasta wax weeyaan yaani tashriif iyo sharaf uu ka dareemaya inuu abtirsado nabiga inuu ku abtirsado oo ahlul bayt baanahay ashraaf baanahay nabiga ka soo jeeday calayhi salaatu wasalaam laakiin maanta yaa ku abtirsanaya abu jahl yaa ku abtirsanaya maanta wax weeyaan maxay ahayd umayyah ibn khalaf yaa ku abtirsanaya al-walid ibn mughira uqbah ibn mu'ayd dadkii maanta wax weeyaan yaani gaalada aha sanaadiid quraysh ee isu haystay iyagu inay yihiin nabiga inay ka mudayeen calayhi salaatu wasalaam cid maanta sheegaysa maanta ma jirto walaajil hada oranaya shucba waxa laga soo wariyay inuu yiri shucbah ibn ayaash qof kasto oo sunniya oo sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaalaya wuxuu nasiib ku leeyahay aayadii ilaahay wuri wa rafa'na laka dhikrak dhikrigaaga sarraysin qof kasto oo mubtadic ah oo ahlul bid'ah oo sunnaha nabiga nacibna wuxuu nasiib ku leeyahay inna shaani'aka huwa al-abtar ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam muddadiisa ayna waafajiyo inaynu raacno inaynu jeclaano inaynu u gargaarno nabiga calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin